samadaasi maraysaa kii sugayow samir reer Somaliland ummadda Soomaaliyeed inta samaha jecel beesha caalamka wixii ku xiran maqaaxida caan dhalay ee Shiina culay waxaan halka ugu bishaareynaya in i'tiraafkii muddada dheer aan doonaynay uu dalka Somaliland maanta miiska u saaran yahay Mareykanka xaqiisa uu imminent ka yahay anytime ay ku dhawaaqi doonaan safarkii guuleystay ee madaxweynaheena hooda badana u bixiyay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu ku tagay Nairobi oo uu guulo taariikhi ah ka soo hooyay diblomaasiyadeed dhaqaale dhaqan xasan sheekh maxamuud iyo xirtiisii oo si kasta oo kabashkabashta ugu dhamaatay uu soo bajiqiyo barida dhulka ugu dhuftay William Ruto oo soo istaagay xasan haduu xiriirka ii jiro Mareykan aad hadda soo socdo le Somaliland ana u horeeyo ictiraafaye ana kala horeyn doona waa Shiina culay oo ka codsanaya muuqaalka inaad sii share gareyso bartiisana ah ku xirnaatid oo follow soo tiraahdo Hargeysa maalinta ka degay dad badan oo war xumo tashiila oo odaygu dinin caan dhalay oo la iska caayo weeye meelaha wixii la taagnaayeen reer Hargeysow Shiina intuu idinla joogo idinla dabaaldegayo in amaanaya maalintu ka dego Jarmalka oo maqaaxidii soo fariisto qacba idinka yeeri doonto qalbada idin jarta idinka qacini ka yeertay calanka Somaliland ba halka uga jeedaan wallahi dajin mayo waa saan u soo dhigay waa ku diirsanaya dugsu u ahaanaya gabar yar oo aan dhalay oo safal dhaho 5 sano jira maanta markay aragtay halka isagoo soo waxay u tiri aaba muxuu yahay gacantaan u galiyo waxay waa calankaagi dal kale oo Somaliland dhaho baa leedahay ku abshirayso waa ku geyn doona insha Allah taala riyooyinka leeyahay kamid tahay inaan dib ugu soo celiyo si ay diintooda dalkooda iyo dadkooda u bartaan waa ku faraxday maanta hadda dhinac loo ordaysay waa dhigi weyd waa ilmo yar markii dambe sawirka madaxweynaha markay aragtay waxay tiraahday kalarka iyo kalarkaas way soo egyihiin waa ilmo yar saasaan ugu ababinayaa Somaliland ana halka u fadhiya madaxweyne Ciro maalintii aan isaragnay hadaladan ku yiri waxa kamid aha madaxweyne Somalilandnimadu ma aha anoo buraan oo xadka jooga wiil boorama ka yimid inuu igu yimaado waa inaan halka anigu aan dawladnimada ku dareemo wax qabadkeeda wada lahaanshaheeda walaalnimadeeda oo halka aanu difaaca ka xiro xadku soo xiro taasana ku shaqeyn doona waana jirtaa carra warsan gali wallahi oo billahi meel kamida oo calanka Somaliland uu maanta ka taagnayn ma jirto reer Sheekh Isxaaq qofkii Somaliland u yaqaana isaga nagu khaldami reer Sheekh Isxaaq qabiil kamida qabiilada Somaliland diga oo udub dhaxaadka u aweeye beesha dhexe laakiin Somaliland beela balaaran adiga oo Shiina culay kow ka yahay jamhuuriyadda Somaliland qadiyadeedii maanta meel fiican bay maraysaa Soomaali waa soo fahantay waxaan rabnaa inaan ka dhaadhicno dadka Soomaaliyeed ee walaalaha iyo awar Somaliland oo dal noqota war walaalayaal waxba ka dareen qabanina dantiina ku jirta Djibouti maxay maanta culaysidu ku haysaa inay wax idin tarto oo shirka carta idin qabato oo ciidamo idin soo dirto iyadoo waliba wadan yar oo hal magaalo iska ah Somaliland oo dal ah intee in tari lahayd waxyaabo la murugoodo waxa kamid ah marka Hargeysa tagay dadkaasi sida horumarka ugu heelayihiin dariiqyada waxay dhisteen dambiga sida looga galay oo lugaha loo hayo oo dadab ka baxayo dumay oo aan soo socon oo dunidii maanta samir ka taagan tahay la rabo in loo hayo naga ma tagi karaan warwalka haduu tashado oo jaamici noqonayo adna marfish kugu dumay war waa inaa fasaxdo horumarkiisa niyada ka jeclaato hawl aan u gacan qaaday oo aanan ka bina dhalin ma jirto wallahi gul darama aqaani ballan waxa igu ah nin weyn oo xogogaala oo war haya baan ahay la iima waxyoodo 2025 ka ictiraafka hadaan keeni weyno 26 inuu yimaado waxaan halka idinka tusi doonaa madaxweynaha Soomaaliya oo Hargeysa intuu ka tagay dad kale inaga raali ahaada khalad bay ahayd lugaa inaanu isii hayno waxaan rabnaa dadka reer Somaliland sidaas la mid ah dadka walaalahooda Soomaaliyeed inaan lagu wiirsan in dayaca dhexdooda ka jira waxa weeye loo duceeyo sidii madaxweynuhu sheegay wixii la qaban karo in la qabto inaan waxba lagu wiirsan gacantaada ku gubata golgasha la gashada walaalahay weeye meel ka tagi maayaan sida ay Nairobi u maal gashanayaan oo dantu ay u baday oo kukuyo madaxa uga garaacayso baa waxaan doonaynaa Hargeysa inay u yimaadaan u dhistaan ku dareemaan dhul walaalahood dhulkoodii ay arkaan waxaan rabnaa waxa weeye shalay markii wax la isku dareeyay oo aynu isu imaneynay oo dawladnimadeenu la orodno sida shuruud la'aanta ah ku geynay de iyagaan u tagnay xataa cid saddexaad inoo ma joogin iyagu inay inoo marag furaan dadkooda samaka taliska ah wax garadka dad wanaagsan baa soo baxay isku wada mid maaha xasad ma wada aha shacabku dad fiican buu baday qof iska madaxa sida Xasan oo kale oo intuu gacanta duubto carabaha raba inuu ku soo baarto sika ka soo urursado maabkaas oo dhan ka taliya meel uu tagi karin ama Mareykan deyma kaga soo qaato iyo deeqo berbera idin siinaya maaha dad isaga iyo dhowr lamida maaha
dadka shacabka waa fiicay tusaale waxa idin ah ra'iisul wasaare maxamed cabdi rooble oo maanta hadlayay ra'iisul wasaare hore wuxuu yiri reer Soomaaliland doorashadii saddexaad bay qabsadeen saddex xisbi ay leeyihiin afar madaxweynaha si silmiya xukunka isugu dhiibay warmaynu kaga dayano warmaan dhahno cid noo soo dira bal casharada nabarta saasa wanaagiina loo qaraya marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in la mobilize gareeyo sawirka Soomaaliland laga bixinayo propagandada ah ee la leeyahay waa Soomaalidiid inaan beenino Soomaalinimadu Hargeysa ka bilaabatay iyada ku dhamaanay hadday af tahay hadday suugaan tahay Somaliland hadday dhaqan tahay hadday gabay tahay nacalla sidaan ku yaal sidee aniga la iga garbiya propagandada maalinta madaxweyne Somaliland uu tago adsawa looga dhigayo inuu xabashi u tago maalinta madaxweyne Soomaaliyeed tagana walaalkay waan u tago labada gacmood ugu salaamayo saala leeyahay taa inaan ka dagaalanaan doonina dadku inay saa u fahmaan ma doonina maalintii dhawaato Hargeysa marka tagay nin isaaq u tagaalay arkay nin dalkiisii tagay jamhuuriyadiisii tagay caasimadiisii tagay inaan ahay Soomaali ana wada gaarsiinayo garasiinayo dalka in la wada leeyahay ummad reer Soomaaliland oo reer waqooyi ah 1884 baarlin madaxafkaan tagay meeshii lagu saxay annaga dadka u sheegayna propagandada iyo dacaayadaha waxa huhaada waa in meesha laga saaro madaxweynaha Soomaaliya bishii July marka tagay wallahi oo billahi oo tallaah iyo September mar aan la kulmayba afkiisu uga yiri xuduudda waa qirsay laakiin wuxuu doonaya dadkayga hartiga wuxuu rabaa caydi oo intuu sida bahalkii lagu jibaalan jiray oo intuu u galiyo badda ku tuuro inuu isaaq nagu soo dabu doonaya haddii u suurta gashan alxamdulillah Soomaali uu halka ku haysto madaxa ka garaaco oo ku tugsado haddii u suurta gali weydana uu dhaho war walaalayaalow raaca dadkiini ictiraaf beeleen intaas u doonaya maxaa naga dadkayga noo ku diraya marka anu ma ina khalifa aniga ii tali kara maanta shalay markii doorashada Soomaaliland la galay oo golaha baarlamaanka warsagal halka xildhibaan uu ka waayay maalintaas oo Soomaaliland ka tagay ninkii halka ka soo duulay oo Muuse noo soo kaxeeyay oo maxaan ku raahday Saleebaanka gaal matoobida u siday Cabdirasaaq Khaliif waxa oo annaga nagu laha walaalayaal jamhuuriyadda ka tagina war meelna uma socono war dalkayagu naga badan war xil umada ma wada deeqo war horumarkiisa naga badan Muuse maxaan oo sita dadkii lahaabaan Cabdirasaaq baa ninkii laha golaha hadii xildhibaan kala helana gudoomiyihiisii ana igu qarac maanta hadaa adeer dantaada isku qabateen oo u dagaasheen war anaga dabna ma gelinaysid xasanna dantiisa noolama iman kartid waxba xuduuda beenana nooma sameynaysid runtaan ku sheegaya ninkii xasan sheekh maxamuud wuxuu waday miiska saa ugu afrogo ku kaajo wallahi anigu ah warsangali oo dhan waa igu soo hambaliyeen hal isim oo warsangaliya oo ka soo horjeeda Soomaaliland maanta ma jiro ii keena iskuul aan imtixaan looga fariisanayna wallahi ma jiro magaalada calanka ka babanayna ma jiro ninkii isagu magaaladiisa tuuladiisa degmadiisa meel kale la aadayo wax ku helaya ku hel baa leenahay dabada kuma haysano laakiin dalkayga anaga la sukaaya bahala gelin mayo ana warka nin warsangali iga caasano iga culus oo meel gaarsiin lahaana ma jiro dadkayguna wallahi hadday isin tahay hadday aqoonyaha tahay hadday bahalkii tahay intaas ay ugu la socdaan mid iyo laba habaar Hargeysa xataa laga heli karaa dib male cid kasta qof waa iska soo bixi karaa meelaha inuu dad kale maaragtay wax iskaga camirto iska jecel baaga mudada dadka iskaga badan Soomaali waa cid kasta waa laga heli karaa reer Hargeysa isaaqba ku Muqdisho ka shaqeeyaa jira dib male waxaas dib male nuxurka u soo daadegaya waxa weeye booqashadii Hargeysa horta ku tagay barnaamij gaar ah ka sameynaya oo saddex qaybood dadka gobonimada wanaag sida la ii soo dhaweeyay waxa leeyahay fi qulubina qaranka walaalayaal aad u mahadsantiin barnaamij gaar ah oo maaragtay saddex qaybood oo ummadda Soomaaliyeed la yaabto oo maxaa ku rahay dadnimadiina wanaagiina horumarkiina maxaa ku raahday hodantinimadiina hagaagsanaantiina waxa idin baa ka sheekayn doona waxaan u soo daadegaya cirgaar xaaladeedina meel fiican inoo maraysa dadkii durba qaar waa noqdeen insha Allah ta'ala gogol baa la dhigayaa iyagoo dadkaasi sharfan oo dalkooda wax ku ah oo cirdigooda la ilaalinayo oo waliba wixii hanti ka baabaday xataa loo cawad celinayo bay tagayaan wax walaalo wuxuu ku dhaawa ma leh annaga maanta waxa weeye hadaa xasan maalintii taladiisa qaadan lahaa oo maxaa ku rahay qorigii dabka ka soo qaadan lahaa cirgaaba laga hadlayaa maanta Boosaaso annaga ma jirteen naga dhex taagnaan lahayd sidoo wax noogu sheegay nin weyn baa umul iyo nin weyn si wax oogay waxuma sheegaan laakiin ka diidnay dadka walaalaha iyo daarooda oo qaranka aan isugu imanayno iyo tulnimadana madaxay noo saareeyeen iyagana annaga ka dhaadhicinayna war sida ka biciidiyaan iyo ka reer khalaf iyo maxaa ku raay kaareer maxamuud ee Itoobiya u jooga ma jirteeno ugu qanacsantiin oo maaragtay walaalkiinu u yahay war halka nagu ogaada haddii kuwa kan ka soo xabadana maalinta noo soo ciidamaya laakiin naga daayay annaga wax faahfaahinayna insha Allah ta'ala inta Boosaaso warsagal joogtana waa joogi jamhuuriyadda Soomaaliland meel fiican baa wax maraya dadka shaqeeyana insha Allah ta'ala waana si wadayna wanaag horumarka Soomaaliyeed baa ku jira inta danta u soo daadegaya
madaxweynuhu booqasho wuxuu ka tegay Nairobi guul taariikhi ka keenay waa la socotaan William Ruto ma arki karo isaga iska tagay safaarad laba furin waa loo diiday mid walba intuu soo itaabsi dab Ruto la sawir maaha madaxtooyadu buu la dhex tabacsaday hadba dhinac ulo maraya wakaas markaas waa photos barra wuxuu leeyahay magaciisi faroolaba waa butay waa kala guri baa ku dumay safaarad lama furi karo safaaradii dhab intee la eg tahay safaaradda Soomaaliya meesha ku jirto maalin dhaxlaasaan tagay ku weersan mayo masha Allah guriga la dhisay waa yaabay waxa ay 10 milyan baa Soomaaliya ka baxa u maleynaya waa yaabaysa waa safaarad waagi hore office xafiis buu ahaa hadda safaarad weey waa Somaliland horaan u sheegay maalinta Hargeysa ka digay de facto way waa xaqiiqo jirta xaqiiqo weey اعترافكي انت دجوركنا hadda u soo socda mar hadii safaaradii bay u istaagan tahay adduunyadiina maanta walaalayaal Soomaaliland waxyaabaha danteeda maanta riixaya oo adduunyadii ku kalifaya in la اعتراafo ko waxa ka maanta adduunyadu sidii ay hore ugu fikiraysay waa isbedeshay maanta aan wax wada qabsano baa la rabaa maxaa ii offer gareynaysaa maxaa igaga bedelanaysaa waxa tuugsi gacanta ummadii daashay madaxweynuhu heer wuxuu maraya xasan sheekh gacan uu duubto jawcaan timaa la baxo garka ku baxo waa la daalay ciidamadii Afrika oo xataa nabad ilaalinta ahaa oo uu lahaa 2 sano ku saaraya hadii la doorto ba maanta mushaharkii loo laayay la ii soo kordhiyo mushahar loo raadiyo 6 bilood Mareykanka iyo Yurub gacmahay ka laabteen Afrikaankii maanta taliyay Africom ba Afrika wareegayo wuxuu lahaa Afrika isku tasho waa daalay Soomaalida waxa rabaa inay fahmaan waxay ku leeyihiin qaxootigayga Yurub waan caday dibadda waa laga nacay war lama nicna qaxootigi baa batay Yurub 7 milyan oo Ukraine ba halka u fadhiya guri kasta waxa la geed kasta in gubta oo hoostaala adduunyadii Mareykanka arkaysan mushkilad dhaqaale ka taagan adduunku sidii waagi hore to ma aha waa la isbedelay nin kasta dantiisu fiirsanaya marka Soomaaliya waa laga daalay ilaahay culayska ka dulqaado waa u duceynayna laakiin wallahi waa laga daalay jug ay meesha la joog 4 sano oo kasta election baa la iska bariyaa madaxweynaha halka talada ku shito wuxuu leeyahay waa ku darsanaya halkii bay taagantahay adduunyadu cawaam ma aha wixii bay fahansan yihiin waa la socdaa Somaliland inay hore u socoto wax qabsanayso doorashooyinkeeda iyadoo cidina aysan shilin ku darsan sanduuq dhiganayso silmiya habari ku dhimanayn cidi natiijada diideyn maxaa kula madaxweynayaasha iyagoo qoslaya gacanta isu saaraya xukunka ula kala wareegayaan waxa la arkaa strategic ba ilaahay hadaa maqasho Somaliland meesha ku taal strategic waa aragtay adduunka janaalka Suez waxa marayo dhan baa maraya strategic Xasan Sheekh Maxamed Maalin wuxuu ugu yiraahday Turkiga baa nafta ii keeno laas qoray baa u soo saxay والله بيجيك ماي مركز عوريد الأصغر وميل هول بدره ما كين كرناه ما دير يوم يلها ما جيسو بدوين ده هندي ما جيسو ويري بدي هندي هاي بركات بوكدك عيد ما ينسى والله بيجيك ماي ما جردو هذي عيد كو قضيه لسه ما كسكر ما كو قضيه لهي بدي هندي سا أود وركسن مركز تركي بان أصغر جيريا ورقتك باكو يري بلاك جيسي وحيابا ما ركتي كودرني oo ma aragtay iska dulaala ay ka bitay bar waa detail soo galo Somaliland marka strategic place ku taala badeeda ilaa Seylac ilaa iyo Ceelaayo adduunka dhan baa saa ugu jeeda meel ka fiigaysa waa la socota Seylac intee Ruushku ku gorgortamayo laha Somaliland اعتراafka siinaya Mareykanka ilaa markii dambe fiitad isu adeegsaday laas qoray waa ka Xasan baana la Turkiga waxa ka soo cuno tartan haysta waan geynaya war ma geyn kartaa xataa aqli ku darimayo ma oran karo war meesha gacan kuma hayo war meesha idin ma geyn karayo ma oran karo dadkayga caamada ahaana wuxuu ugu sheekeynaya dekad baa in siyaa muxuu ku dhisaa isagii baa aadaya waa ka soo cararay muxuu wax ku dhisaa ummaddu ma waxa haysan dad caama oo haysta madaxweyne Ciro waa ii marag maalintan u tagay wallahi oo billahi oo tallahi xil kala ma hadlin xoolo kala ma hadlin wax ii galay ma hadlin warwarsan gal inta meeyra ka dhisteen oo kale u dhisa haddaynu deeqdu baa xataa wayna miisaaniyada uga jar kartaan uga jar dadka in wax loo qabtaa la doonaya la soo jiito haddii kale waxa way dhexdeena dadka in la mideeyaa raba dawladnimada wax qabadka mashaariicda inay wada gaarto la wada daransiyo waa isla qaadanay wax fiican aan soo socda meeshina ku dhargeysan calanka saa u haystaan kor u sida hadhiginina maxaa idinka qor dableeydu ku dhiibaya Xasan Sheekho shan xildhibaan u jeeto le halka ay doorta oo rabo inuu majartaan inuu ku diro oo rabo daarood inuu ku diro oo rabo isaaq inuu ku diro oo dantiisu ay tahay tuurtaas aan talada Soomaaliyeed ku sidanaya
kursigaasaa ii muuqda qabuura iyo waxaa faagay cid aan ka naxayo ma leh ninka ajax maraya markaasaa dekada inii dhisay wuxuu dekada qabriga ajax kaga maarmo waryaan been laydii sheegay dekada ciraa soo wada wallahi bilaahi wadada maxaa la dhahaa ceergaabo iyo halaaftimeynta ka dhimana wallahi uu ii ballan qaaday waan kala hadlay wallahi uu keeni faahfaahin dheeraa uga hadli doonaa marka Soomaaliland strategic place ku taala adduunkii oo dhan baa raba adduunku waa waxaan kala bedelano heerkaasaa la maraya deyn baa la iska siinayaa deeq waxa waa dhamaatay Soomaaliland marka istaraatiijiyad baa laga leeyahay safaaradda Mareykanka hadda maanta New York Times ku qoray safaaradda Mareykanka baa wuxuu leeyahay safaaradda Muqdisho ma sii oolaan kartay ama Addis Ababa ama Berbera aan geyno warbixinta waxa ku qoraa Soviet era military base naval ku qoraa macnaha ilaa Sovietigi baa meeshaas ka dhisay military base baa meel istaraatiiji ah halka super powerku ay weligood saa ay maartay ay ugu lagabadabaan maanta adduunyadii waxa la socotaan inuu adduunkii ka guuriyo maxaa ku lahaa inuu hal gacan ku jiro oo quwado kale super power kale ay soo baxayaan ruushku inuu madax soo qaaday shiina inuu cirka marayo mareykanka inuu rabo inuu maxaa ku lahaa Europe tan aan joogno leeyahay war isku tashada Pacific aan aaday anigu ruushka iska maxaa mareykan iska celiya berber uu raba inuu soo fariisto waxba la kala bedelanaya Soomaaliya maxay ofar gareyn kartaa iyadii baa madaxweynaha baa askari meesha hor socod ma askariga Uganda iska oo ilaalinayo waxay soo ku bedeli karinay oo ku kalsoonaan karinay 30 sano loo tababaray deeq la siinay meel waa tagi laay dadkan hore u socdaa la arkaa dabkii baxaya dab lagu qabsada Soomaaliland saasa dunida u doonaysa madaxweynuhu waa arkayseen Nairobi isaga cadaankiisu u fadhiyo oo maaragtay ula fadhiyo calankii baa yaalo kursi halkaas kala safay waftigiisina halku safay cadaanka halka xasan xalana looga yeeray waa gacan ilaahu nibahan gudmaha saacadu baalka saas u fadhiya xalan u fadhiya waa dalkiisi filada igu kaalaya ma oran karo intuu Nairobi ugu tago saac intuu u fariistay sawirka waka saac u fariisto gacmaha saac isu gashaday buu leeyahay halka uma imanina ayni baryo inaan wax kala faa'iidno sharing mutual interest dadku marka dan kala leedin waa ixtiraamaysa waa lagu ixtiraamaya ma sharafa nafsuhu fuwa sharif laakiin marka lagu dadaayay in baa xasan Soomaali magaxumada Soomaali oo dhan dadku dhan waa ethnic waa qoomiyad Soomaali oo magaxumada dadku dhan uu keenay wallahi waa ka dhaca marka arko ilaa iga sareeyo gurigiisiiba inta cadaan ugu yimi maxaa gurigiisa lagu garaacay maqal jirtay xaalada lagu garaacay cirano Nairobi jidaybo cadaankii barida dhulka ugu soo dhuftay oo waxaan ku iraahdaa ila ixtiraamaya gobonimadu waa taa Soomaaliland marka dantaas laga leeyahay ciro iyo xasan laba nin oo Soomaaliyeed weey kanaaba hadda la ixtiraafsan yahay laakiin way cirasaa loogu ixtiraamaya waxa loogu ixtiraamaya waxa weeye wuxuu ofar gareyn karo nin cagihiisa ku taagan ismaamulaya iyaga deeqan ka rabin miisaaniyadiisa aysan kabin askari maxaa ku iraahdaayay ilaaliya aysan iyagu u dirin amaankiisa isagu suganaya dadkiisa midaystay weey hawka dimuqraadiyad lagu soo doortay doorashadiisa aysan ka walwalsanayn iyo nin tuurtu ku shitaa gaaladii khayre iyo rooble iyo shariifa nafti u keenay xasan naga qabta wax buu xaday uu ku shubanaya uu ku darsanaya gaaladii naf mayaan bilaa misi kala celi wax siintooda kala celintooda nooga daran bay taagay Soomaaliland isku soo aragnay bahalkii marka Soomaaliland waa guuleystay waa socotay maqaaxidana insha Allah taala propagandooyinkii la faafin jiray halka lagu la dagaalamaya Soomaaliland dadka Soomaaliyeed bedanteeda ku jirta dadka dad Soomaaliyeed Soomaali araxdeedii away Somaliland hadda isaaq u taqaaneen shiino culo nin harti daarooda warsangeliya amaanta isaaq soo horeeya qadiyadeeda gadaya meel kasta uu istaagaya waxaan rabnaa kan hawiye iyo kan daarood ee Kismaayo ama Muqdisho ama kan Majarteeno boo soo joogan in intaan la fahmo uu isagu saa noola gado dhowr dadkaasi shalay walaalnimo iyo kalgacal bay noogu yimaadeen qaranimadoodii noogu keeneen dalkoodii noogu keeneen maanta haday go'aansadeen inay annaga nagu daaleen oo maaragtay xaaladeeda ay waqshugash tahay wabillahi tawfiiq iyaga annaga ugu jiideena taasaan ka shaqeynayna dadka waa walaalo meel lama kala tagayo si kasto Soomaaliland ictiraaf yeesho North Korea South Korea scenario-da ku dhamaanayso dad walaalo ah sida Djibouti iyo maanta Muqdisho isku yihiin sida Jigjiga Hargeysa isku yihiin maxaan ku raahday wixii la isku yahay wax kasta ka weyn waa shiino culay barnaamijka maqaaxida aan ku soo bandhigi doono socodkay uga hadli doono insha Allah waa keeni doona reer Soomaaliland guul Soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal ma sha Allah ilaahay idinka raahayna quweeyo ma sha Allah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh